jaamacaddu waxay ku haysaa 11 kuliyadood iyo barnaamijka daraasaadka sare. kuliyadda caafimaadka medicine, kuliyadda engineeringka oo ka kooban architecture, civil engineering iyo electric and electronic engineering. kuliyadda culuumta caafimaadka oo ka kooban medical laboratory science, public health, microbiology, midwifery, general nursing, clinical officer iyo nutrition. kuliyadda beeraha agriculture oo ka kooban animal production, crop production iyo agricultural engineering. kuliyadda xanaanada xoolaha veterinary oo ay hoos imaanayso veterinary and medicine. kuliyadda kombiyuutarka iyo macluumaadka tiknoolajiyadda oo ka kooban computer science, information technology IT iyo enterprise networking. kuliyadda dhaqaalaha iyo culuumta maamulka oo ka kooban marketing, business administration, finance and banking, project management, economics, accounting iyo statistics. kuliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science, public administration iyo international relations. kuliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban shareecan law oo ku baxaya luqadda ingiriiska iyo shareeca. kuliyadda waxbarashada oo ka kooban geography and history, islamic studies, arabic language, social science, math and physics, biology and chemistry and biology iyo physics and math. kuliyadda aadaabta iyo culuumta insaaniga oo ka kooban social work, geographic information system, history and civilization, English language and literature, Arabic language and literature, journalism and information iyo geography. isdiiwaangelintu waxay ka bilaabatay 15 bisha 7 2019 xarunta dhexe ee jaamacadda ee kilometer 4. wixii faahfaahininta dheer fadlan kala xiriir telefoon numberka ebereber 2521 81 ebereber 252 613 99 ama ebereber 252 699 77 email info@mu.edu.so ama website-ka jaamacadda www.mu.edu.so.